بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: يضاف عليهم بسحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. walaalayaal ilaahay soo ka waramaya qayb ka mid ah nicmooyinka ay heleen ahlu jannuhu markay jannada tagaan ay helayaan. wuxuu ilaahay yidhi waxaa lagula wareegaya ahlu jannaha oo khaadimiinta iyo dadka u shaqeeya ay kula wareegayaan saxfado iyo siximo waaweyn ay ku jiraan wax kasta ay jecel yihiin ahlu jannuhu, indhuhuna ay ku qabowsadaan. ilaahay isagoo ahlu jannaha la hadlayna wuxuu yidhi wa antum idinku ahlu jannow fiiha jannada dhexdeed khaaliduuna ku waaraysaan. marka qofka ahlu jannaahi hadduu isagoo jannada joogo wax u baahdo oo uu tamaniyo niyaddana ku saab u qabto ayaa wixii u imanaya. culimmada qaar waxay sheegaan qofka ahlu jannaahi hadduu wax u baahdo waxaa jirta kelmad uu odhanayo, bay culimmada qaar sheegaan. kelmad uu odhanayo, kelmadda markuu yidhaahdo waxa u imanaya wuxuu jeclaa. mathalan iyagoo culimmada qaar micnaynaya ama tafsiiraya aayadda qur-aanka ilaahay leeyahay dacwaahum fiiha subxaanaka allaahumma wa taxiyatuhum fiiha salaam wa aakhiru dacwaahum an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. ayaa ibnu jurayj wuxuu yidhi ahlu jannuhu hadday soo hormarto shimbir ama waxay u baahan yihiin hilibka shimbiraha oo kale waa shiilan, waa nimcooyinka jannada yaalla ee ilaahayna qur-aankiisa kaga waramay. walaxmi dayri mima yashtahuun waa la yidhi. marka hadday shimbir soo hormarto ibnu jurayj yidhi ama shay ay jecel yihiin ahlu janno waxay odhanayaan subxaanaka allaahumma. dabadeedna markay kelmaddaa dhahaan ay niyaddana ku qabtaan shayga ay jecel yihiin waxaa agtooda ka istaagaya malag baa u imanaya. dabadeedna wuxuu u keenaya waxay jeclaayeen. macnaheedu waa maxay? dacwaa subxaanaka allaahumma markay dhahaan, markuu shaygaa u keeno wuu salaamaya. wa taxiyatuhum fiiha salaam buu ku micneeyey, wuu salaamaya. markuu salaamo ay arrinkaa ay cuntada cunaana odhanayaan an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, ilaahay baa mahadle. muqaatil ibnu xayaan oo culimmada mufasiriinta ka mid isna wuxuu yidhi ahlu jannuhu hadday doonaan inay cunto u yeedhaan oo cunto u baahdaan ama wax u baahdaan waxay odhanayaan subxaanaka allaahumma bay odhanayaan. dabadeedna waxaa istaagaya qofka keliya ahlu janna waxa uu istaagaya agtiisa ka istaagaya 10,000 oo khaadim ama 10,000 oo shaqaale kastana waxaa gacantiisa ku jira saxfad ama sixin weyn oo dahab ka samaysan oo ay ku jirto cuntada ku jirtaa kuma jirto ka kale khaadimka ay safxadu hayo. nin walba wuxuu gacantiisa ku jira safxad cunto gooniya ku jirto oo cuntooyinka 10,000 safxadood ku jira khaadim walba gacantiisa ku hayo isku mid maaha, way kala duwan yihiin. waa nimcada jannada taalla. sufyaan athawri wuxuu yidhi hadduu u baahdo ahlu janno inuu shay u yeedho ama wax u yeedho wuxuu doonaado ama cuntaado ama shay kala baanaado subxaanaka allaahumma buu odhanaya. markaasuu shaygii u imanaya, ilaahay u soo sakhirayaayo u imanaya. marka culimmada qaar baa tafsiir kaa maray oo aayadda subxaanaka allaahumma dacwaahum fiiha subxaanaka allaahumma wa taxiyatuhum fiiha salaam sidaa ku micneeyey. culimmada qaarna si kale ku micneeyeen oo tafsiir kale mareen. marka inagu tafsiirkaa maanta ay culimmadu mareen ayaynu marnay. intaasaan kusoo gebagabeynaynaa. waxaan khalday waa xaggayga iyo shaydaanka ka ahaatay, waxaan saxnayna min allaahi tacaala ayay ka ahaatay.